xildhibaanada ayaa waxaa la tilmaamay in ay wada gaartay fariinta ah in biri ku xaadiraan xarunta golaha shacabka wana qayb galaan kulanka looga doodayo mooshinka ay xildhibaanada qaar ka keeneen gudoomiyaha golaha sida ay ku waramayaan ilo wareedyo ka agdhow madaxtooyada oo kulmiye u waramay waxa ilaaminta kulanka ee golaha shacabka u yimid xilli ay kulan wada qaateen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo gudoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari balse inta aanay natiijo kulankooda ka soo bixin xildhibaanada ay gaartay fariinta uu gudoomiye Muudey ku cilaamiyay kulanka biri ee mooshinka jadiisu yahay xildhibaan Muuse Saciid Jaamac oo kamid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa keenan u xaqiijiyay in lagu wargeliyay kulanka biri kulanku waa jiraa maantayku uu noo soo dhacay biri oo Isniina 9 subaxnimo in kulankii guud uu jiro kalsooni kala noqoshada mooshinka gudoomiye Jawaari uu noo soo dhacay waana insha Allah taala waa tagaynaa dilay ka dhigo taasana soo gaadhay golaha shacabka xaruntii golaha shacabka ayaa lagu qaban doonaa insha Allah taala sida anagana soo gaadhay hadda wallahi de kulli cid walba sida iyagu raba dhinaca kale waxa magaalada Muqdisho ka soconaya dadaal ay wadaan xubno u magacaabay gudoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari kuwaas oo ka shaqeynaya in meel ka baxsan xarunta golaha shacabka kulanka biri lagu qabto arbacadii la soo dhaafay ayaa waxa xildhibaanada laba ajende ku ballamiyay gudoomiye jawaari iyo ku-xigeenkiisa Muudey waxaana maalintaasi kulanka uusan ka qabsoomin buuq iyo fawdo hareeyay xarunta lagu shiri lahaa masalowga sida uu xaalka noqon doono maalinta birita ma kulanka ayaa la baajin doonaa mise sidii dhacday arbacadii ayaa dhici doonta mise waxaynu sugnaa 10 cusub